midowga musharaxiinta isbeddeldoonka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen arrimaha Jubbaland oo ay toddobaadkii tagay ka dhacday doorashooyin iska soo horjeeda kuwaasi oo lagu doortay madaxweynayaal. Afhayeenka midowga musharaxiinta Jubbaland musharax Garaad Saalax Axmed Xuseen Mideeye ayaa saxaafadda u akhriyay qoraal ay soo saareen midowga musharaxiinta Jubbaland. Dhanka kale waxa uu sheegay in Sheekh Shakuur oo ahaa gudoomiyaha musharaxiinta Jubbaland uu isagu isku casilay oo ay gudoomiye ku meel gaar ah u doorteen musharax Dr. Maxamed Yuusuf Ducaale. Toddobaadka aan ku jirnay ayaan rabnaa inaan soo gudbino wixii aan u aragnay xalka iyo mowqifkeena dhabta ee ku aadan dhacdooyinkii ugu dambeeyay. waxaan rabaa awal horta inaan wax yar idinka iftiimiyo taariikhda midowga musharaxiinta isbeddeldoonka Jubbaland oo anigu afhayeen ku ahay 12 xubnoodna ka koobnaa. muddo aan ku qiyaasay 7 bilood ka hor ayaanu ururkaasi shaqadiisa bilownay. muddo hadda 3 bilood ku dhowna wuu shaqaynayaa. ahdaafta aasaaska u ahaa midowga wuxuu ahaa in loo midoobo taladan guracan ee Jubbaland ka jirta waxyaabaha si guudna laga midooba balse qof kasta uu si gaar ah musharaxnimadiisa iyo ololihiisa doorasho isaga shakhsiyadiisa halkeeda ay taagnaato ma jirin cid isu tanasushay ma jirin cid maaragtay cid kale ka baawar sareysay oo kaliya waxay ahayd nidaam aan ku wada socon karno danaha caamka ah ee nabada quseeya sida habraaca doorashada la qalday meesha taladeedan ognahay in ay u baahneed iskaashi xoog leh iyo sidii isbedel muuqda aan ugu sameyn lahayn meesha. midowga saas ku saleysnaa ma jirin cid gooni ah oo ay wasaaradda u dhiibteen, mana jirin cid gooni ah oo tanasulaad loo sameeyay, mana jirin cid gooni ah oo musharax u ah. waxaa intaas aan ku darayaa waxaa weeye qodobka kale Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuur oo runtii saaxiibkeena ahaa noogana magacoonaa gudoomiyaha midowga ayaa maalmo ka hor magaalada Kismaayo wuxuu kaga dhawaaqay in uu ka tanasulay kana doorbiday intuu isku caanishubi lahaa uu aqoonsado Axmed Maxamed Islaam oo ka mid ahaa 6 musharax madaxweyne ee sheegatay madaxtinimada Jubbaland. waxaan halkan ka cadeynaynaa wada tashi badan oo sameynay haddii ahaan lahayd midowga qolihii ku midoobay midowga musharaxiinta isbeddeldoonka markaaynu talo badan iyo isrorog badan sameynay ayaa waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno sheekhaas inuu ahaa nin saaxiibkeena ah runtii muddo nala soo shaqeeyay fikirka uu ku hadlaynay maanta uu yahay kiisa isaga shakhsiga ah oo cid uu wakiil ka yahay iyo cid uu magacooda ku hadlay ama ku hadli karo midna inay jirin. intaana halkaan imaanay waan wada xiriirnay in arinta ayada uu ka hadlo sheekha uu yiraahdo aan ogaano waxyaabaha ku kalifay iyo qaabka macnaha talada keentay. runtii arinta ayada ah waxaa kaloo ugu dambeyn u sheegnay in mowqifkiisa shakhsiga ah ku hadlo halkaan annagu ay noogu fududaatay inaanan ka daba hadlin annagoo ixtiraamayno waxyaabaha badan oo jira annagoo ixtiraamayno in qof kasta oo maaragtay Soomaali ah ama qof kasta oo doonaya ambition siyaasadeed leh ama shakhsi kasta rabitaankiisa iyo muxuu sumcadiisa ilaalinayno. laakiin muddo dhowr maalmood ah ayaan siinay inuu sheekha ka jawaabo ilaa haddana wax in mowqifkiisa shakhsiga ah kumuna hadlin sida la aligeed waan ku qasbanahay marka inaan sheegno mowqifkeena aan u sheegno ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno taageerayaashan aan u sheegno reer Jubbaland aan u sheegno caalamka aan u sheegno cid kasta oo danaynaysa ama walwal ka qabto arrimaha Jubbaland. ugu dambeyn gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee midowga musharaxiinta Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay inay doorasho loo dhan yahay ka dhacdo Kismaayo balse ayna ku qanacsanayn doorashooyinka iska soo horjeeda ee halkaasi ka dhacay. anigoo ku hadlaya magaca midowga musharaxiinta isbeddeldoonka ee Jubbaland aan ahay gudoomiyaheeda ku meel gaarka ah waxaan marka hore salaan u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubbaland. salaan kadib Jubbaland waxay saaran tahay waddo isbeddel ah
waxyaabo aada u fara badan baa ka dhacay labadii toddobaad ee u dambeysay. waxaase ugu xiiso badnaa in musharaxiin fara badan ay isu magacaawday inay yihiin madaxweyneyaal. labaan u kala saaraynaa siduu afhayeenkaba sheegay. labada aan u kala saarayna waxaa weeye madaxweyne axmed maxamed islaan, madaxweynihii hore ee jubbaland. isagu khaladka ugu muhiimsan isagaa iska leh, isagaa bahasha karkaarka weydaariyey, isagaa khaladka iska leh. waxaan ugu baaqaynaa inuu ku soo celiyo dariiqii saxa ahaa ee jubbaland tashigeedii iyo wada tashigeedii dib ugu soo celiyo, miiskana soo saaro si doorasho xalaal ay u dhacdo loogana wada qayb galo. taa ma uusan yeelin. dhawaaqii aynu dhawaaqaynay ma uusan qaadan. baaqyadii caalamka uga yimid ma uusan qaadan. baaqii dowladda federaalka ma uusan qaadan. wuu dhiga adeegay, kadibna isagaa madaxweyne isku magacaabay. madaxweynahaasi sharci ma aha, qaanuun ma aha, mana aqbalayno inuu isagu madaxweyne sheegto iyadoo ayan dhicin doorasho xor ah oo xalaal ah. maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere, Som News TV, magaalada Muqdisho.